madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo afjaray safarkiisii uu ku joogay dowladda Puntland waxaana la sheegayaa safarka uu ku joogay inuu yahay safarkii ugu taariikhisanaa ee uu muddo ka badan 22 sano madaxweyne ku maro muddo dhul inta leeg waxaana madaxweynaha oo la sheegay inuu aad iyo aad ugu mafsuuday markuu safarka galay oo uu aad waqti fiican ugu qaatay oo soo afjaray xalayto kuna soo afjaray magaalada Boosaaso waxaana maanta safarkiisa qaybtiisii labaad maamul goboleedka Galmudug ka bilaabi doona magaalada Galkacyo halkaas oo ay ku sugayaan madax badan oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug kuwa ahlu sunna wal jamaa oo iminka la rajeynayo inay midoobaan lana rajeynayo in madaxweynuhu soo afjaro colaadii labada dhexmartay maamul oo la doonayo in lagu mideeyo walow hadda ay mid cusub la rajeynayo oo qaybo kamid ay leeyihiin waxaan ka baxnay maamul goboleedkii la isku oran jiray Galmudug ay doonayaan inay soo ceshadaan magacoodii hore ee la oran jiray Ximan iyo Xeeb waana qolada gobolka Cadaado ama degmada Cadaado oo maamulkaas hore fadhiyo jiray waxa wararku inta ku darayaan madaxweynuhu inuu doonayo inuu safar looga ku maro gobolka labada gobol ee Galgaduud iyo gobolka Mudug walow ay jiraan caqabado laga yaabo inay soo wajihi karaan taasina waxay ka dambeysay kadib markii booqii iyo xasaraadii ka jirtay magaalada Muqdisho ee xagga baarlamaanka iyo wadamadii ku hirdamayay siyaasadda Soomaalida ay u soo dhexmareen maamul goboleedadan iminka lugtii ugu dambeysay bilaabayo madaxweynuhu ee safarkiisa waxaana la rajeynayaa baa la leeyahay inay tani wax weyn ka tarto arrimaha haysta dowladda Soomaalida wixii ka soo kordha hadii kale wararkaas iyo wararka kale caalamkaba kala socod deegaan channel TV